xafladani oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu shaacinayay labada musharax ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka gobolka saaxil iyo degmada Berbera oo kala ahaa Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed Badar oo u taagan ka mid noqoshaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo Faarax Maxamuud Abakor oo isaguna u taagan inuu ka mid noqdo golaha wakiilada ee gobolka saaxil. xafladan shaacintooda ayaa waxaa soo buuxdhaafiyay taageerayaasha labadan musharax hoggaanka sare xisbiga kulmiye iyo wasiirro ka socday xukuumadda Somaliland. waayeelka waxgaradka iyo cuqaasha labadan musharax soo xulay oo iyagu ugu horeyn madashaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ay labadan musharax u soo xuleen. xafladan qiimaha iyo quruxda leh ee la soo abaabulay ee xisbiga kulmiye ee musharaxiintu ay yihiin Sheekh Maxamed iyo oo ah xildhibaanka golaha deegaanka iyo ka golaha wakiilada oo la yiraahdo Faarax Maxamuud Abakor Sheekh Abu Rajaa waxaan leenahay marka hore ducadeedan ku darsanayaa Allah idinku asturo xilkan yaani qiimaha iyo sharafta leh iyaga waxaan leeyahay Allah idinku asturo Maxamed Xaaji Maxamuud iyo Faarax Xaaji Maxamuud golaha deegaanka waxa Maxamed Xaaji Maxamuud golaha baarlamaankana waxa Faarax Xaaji Maxamuud waxa dhalay rag mahiigaana oo dirbay qabaan rag mahiigaana oo guurtaya ayaa horta dhalay iyaguna haddii caqli loo eego iyo haddii cilmi loo eego wax ma sinja habaabin annagu kolley waxaanu nahay xildhibaanadii hore loo soo doortay waanu ku faraxsannahay inaannu xilka maanta ka degno oo qolo kalena la tijaabiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay marka xigana labada musharaxa waanu keennay sidii cuqaasha hore ay sheegtay waa naga guddoomaysaan waa nala soo dhawaynaysaan waa nala dooranaysaan ilaa maanta laga bilaabo ilaa farta saa loogu riday oo leedo way soo baxeen dee xilku inagu nisaariyo waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii hore u soo doorateen ee wareejiyey maanta haniyeeyey ee weliba la shaqaynaya insha allahu tacaala ilaa aanu meel ku hubsanno la shaqaynaya ayaan ka mid ah idinkana waxaanu idinka codsanaynaa sidaa wacana iminka u soo shamirteen ee halkaa uga wada muuqataan ilaa iyo ay dhammaanayso insha allahu tacaala oo halka u dambaysa ay gaadhis ay ku soo baxayaan sidaa aynu soo shamirray inaynu u shamiro oo codka u siino waxaan marka hore u hambalyaynayaa oo soo dhawaynayaa xildhibaanadan aanu soo xullay ee maxay ahaytoy maanta sharaxan ee gobolka iyo degmadaba ka sharaxan ee ilmo xaaji maxamuud laba naanaysoodna waa leeyihiin oo qaali ah aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa waannu idin garab taagannahay beesha labadan xildhibaan caawa aynu isugu yidhi xafladoodii beelaha isugu tegey ee talada isugu geeyay u soo saaray labadan xildhibaan oo uu golaha deegaanka yahay Maxamed Sheekh Maxamuud Xaaji Maxamed ka kalena uu yahay Faarax Maxamuud Abakor oo uu baarlamaanka yahay waxaanu u arkaynaa inay si wanaagsan fakarka tala ilaahay baa leh fakarka u heleen isu geeyeen ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu nasiibkooda iyo tacabka beesha gashay ilaahay ku guuleeyo waxaan marka hore aan hambalyo siinayaa labada musharax ee halkan caawa aynu ku maamuusayno waxaan kale oo aan sagootiyayaa xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka ee u tanaasulay oo runtii aan qirayo halkan ka qirayo inay ahaayeen rag qiimo badan oo hawlkara beesha soo xushay waxaan leeyahay waa asiibteen oo waa soo xusheene laakiin inamadu soo xulista ku soo bixi maayeen codka ha loo huro tacab ha la geliyo xisbiga kulmiyana waxaan leeyahay aqbasheen labeentii Berbera aqbasheen ay ku bushaaraysta anana waxaanu leenahay waanu aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa labada musharax ee ka soo xusheen beesha aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa muddo aan sugaynay inay xildhibaanadan oo kale ay soo bandhigaan ay caawa inoo keeneen laba runtii musharax
oo runtii aad iyo aad u miisaan badan oo runtii aad iyo aad u qiimo badan sheekh maxamed xaaji maxamuud iyo runtii sheekh faarax aburijaa oo isaguna runtii labadu ay ka mid yihiin laba xildhibaan runtii aad iyo aad u qiimo badan aad baan ugu faraxsannahay waxaan kaloo mahad celinaynaa beesha garatay inay musharaxiinta qiimaha badan leh runtii ay soo xusho anigu kuma jirin keliya muxuu ahaa inaan kaarar qaadadkii iyo diiwaangelintii u imarayey laakiin markii la kala tanaasulinayeyna waan fadhiyey anigu waan fadhiyey waxaa sharaf leh dee raggii tanaasulay kuraasta ka kacay ee gartay inay walaalahood ku soo dhoweeyaan waxaa kaloo jira oo aan halkan farriin u farayaa dad badanoo aan deegaankoodii gaari karaynin laakiin communitigan ay isxigaan ama ay isku dhow yihiin aad maahan u codeeya haddaanad deegaankaaga gaari karaynin marka u horaysa waxa weeye dimuqraadiyaddu waa maxay marka hore dimuqraadiyaddu waa tan caawoo kale oo laga barto xisbiga kulmiye ayay kow ka tahay xildhibaanadii hore ee aan isku golaha ahayn ee ay ka mid yihiin ismaaciil iyo jaamac iyo ragga caawa beddelaya waxay matalaysaa dimuqraadiyadda somalilan ee ay ku hana qaaday sheekh maxamed xaaji maxamuud iyo sheekh faarax maxamuud abakor oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ballanqaadyo u sameeyey taageerayaasha iyo labada beelood ee soo xulay inay u matalaan golayaasha wakiilada iyo deegaanka degmada berbera issharaxaadayda kolley hami baa yimi waa hami fog dee waa wax ku dhasho ibni aadamka ku abuuran inuu qofku damac yeesho oo uu wax doono waxyaalaha ugu badan ee aan sidhi dareenkaaga way dhaliyeen waxaa weeye golaha degaanka ee berbera kolley waa golo degaan oo maanta golo degaan oo aad iyo aad loo majeeranayo marka magaalooyinka kale la eego waxaan haddana isidhi halkaa ay gaadhsiiyeen waxbaad ku biirin kartaayoo waad ka sii qaadi kartaa waxa la yidhi ciyaarta marka dabadda laga joogo dadku waa wada xariif yaa waar moo halkaa ka dhaliyaad odhanaysaa moo halkaa ka laado malaa dhowr meeloodoo aan ka laadi lahaa oo aan reer berberanimo sheeganayo oo aan degaannimo iyo dad aqoon ahaan sheeganayo oo dadku siday u kala jilcisan yihiin iyo aqoontooda aan aad iyo aad anuga ugu aqoon badanahay oo cimriga ah ilaa maalintaan ku dhashay berbera aan taaganahay waxaan is idhi wax badan baad biirin kartaa oo aad ku biirin kartaa golaha oo aad soo kordhin kartaa ilaaha casaawajallaana waxaan ka baryayaa inay ahay igu kiinaasturo oo aan soo baxo oo hanka weyn ee ay qabtaanna aydaan igu hamajabin oo hanka weyn ay igu qabtaan wixii aan biirin lahaa idankaan la biiriyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ummadda deeqa waa cadaaladda annagoo rajaynaan inaanu cadaalad ku maamulno gobolka wixii ka maqan ee awooddayada ah inaanu cadaalad ku maamulno annagoo rajaynayna inay reer berbera iyo reer saaxil ay xaqooda waxay ku leeyihiin golaha baarlamanka inaanu miiska baarlamanka waxaan rajaynayaa inaan kaga doodo waxa gobolkan ka maqan ee kaga maqan arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo maxay ahayday infrastructure-ka iyo wadooyinka waynu ognahay gobolkeenu gobol qorfa weeye wadooyinkiisa waynu ognahay dhibaatada haysata waynu ognahay waxaan rajaynaynaa inaanu aniguna kaga doodo golaha baarlamanka dhexdiisa kaga doodo oo xaqii ka maqnaa gobolka aan raadiyo oo aan u mahadnaqayaa madax dhaqameedka iyo xildhibaanadii hore iyo guurtida markaa maxay ahayday beelahaana soo xulay oo runtii iyadoo dad naga aqoon badan naga karti badan naga cilmi badan naga fiican maxay ahayday ay joogaan haddana annaga nagu maamuusay ee noo gartay inaannu xilkaa qabanno ayaannu iyagana aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadnaqaynaa xoggaanka xisbiga kulmiye oo uu ka socday afhayeenka xisbiga kulmiye cabdinaasir buuni iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay aqbaleen labadan musharax islamarkaana ay kala shaqayn doonaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen labadaasi gole ay u tartamayaan ku hadlaya xisbiga kulmiyena waxaan leeyahay faan bay noo tahay farxad bay noo tahay dad noocaas oo kale ah inay ka soo qayb galaan
oo musharaxiin ka noqdaan oo xisbiga hoggaamiyaan oo ka soo dhex baxaan labeentaa muuqanaysa ee cadaaladda ku muuqanaysa ee diinta ka muuqanaysa ee akhlaaqadda ka muuqanaysa ee howlkarnimada ka muuqanaysa sharaf iyo magac iyo maamuus bay noo tahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay galabta halkaa uga soo carrownay caasimaddii jamhuuriyadda somalilan waa labadaa musharax inaannu farxaddooda iyo raynrayntooda la qaybsanno idinkana waxaa laynaga rajaynayaa sida aad u soo xusheen inaad codkana ula berber istaagtaan baan inaga codsanaynaa xisbi ahaanna waxa weeye waa horaan loo guddoomay sharaf iyo xurmayna xisbiga ku yeelan doonaan iminkana ku leeyihiin aad iyo aad baan inagu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda Saleebaan Guray iyo Maxamed Xaaji Aadan oo ah wasiirka arrimaha dastuurka ee Somaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay taageerayaasha iyo labada musharax beelaha soo xulay inay codka siiyaan maalinta doorashada si ay u soo baxaan. waxaan filayaa ballan baynu gallay hawshaasi waa laga sheekeeyey shaqo dheer baa loo baahan yahay shaqadaasi caaway bilaabatay waa in loo diyaargaroobo dulqaad loogu diyaargaroobo gaari loogu diyaargaroobo gaadiid cod loogu diyaargaroobo dhaqaale loogu diyaargaroobo lug loogu diyaargaroobo waxa weeyaan maxaa la odhan jiray amba faydne waxba hay farin taana waxa weeye waa ballan aynu caawa musharaxiinta hortooda aynu ka gallay mar haddaynu soo xullay iyaguna ay aqbaleen codsina ay soo jeediyeen inaynu codsigooda aqballo oo la shaqayno oo la soo saaro oo la hawlgeliyo oo berri lagula xisaabtamo sidaasaynu ballan qaadnay sow ma aha iyo dhammaan golihii dhaqanka ee meesha fog laga doonay ee ka hawlgalay aad baan ugu mahad celinaya waxaan kaga baxayaa mid dardaarana waan kaga baxayaa dardaaranku waxa weeye waa kii raggii iga horreeyey yidhi waxa aynu ka hadlayno iyo waxaa caawaba aynu ka hadlaynay gunteeda iyo gebagabadeedu waxa weeye inamadaa inaynu soo saarno Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.